بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أصحابتي دقاليقا وايد السلامي ميل كستا جوجتان إي حلي كستا إيديتا وحان رجانينا فرحادي عافمات قبطان إلهي إيدي السياديو انت حنوصانيسا الله عافية انت عافمات قبطان الله السياديو. أصحابتي دقاليقا ساك وحا إنو وضا قراع دي عرورتا أسميناي ما شاء الله واروتي قدار كود أحسمينايو كومانا سمي دونو فورنو وحان كو سمينايا بان ما شاء الله وانا سلا أركي دونا سيدا قروح بدنا إنو سو بحيسو وقراع ير أو فضوط ما شاء الله عرورتا أدو جعليهن ما شاء الله فيتامين والبين كهلايان. أصحابتي دقاليقا سو دوادا ملكستا جوجتان كفائديس وعن وقرينتي هالكان وحان كو هيستا وحيابيه أنك سميسا لهاي لaba xabo ukun ah كاروت لaba xabo aan soo hoolay jab barbarooni ah jab kabsar caleen ah hal bakeeri oo cheese mozzarella ah bakeeri caana ay saddex bakeeri oo bur ah ugu horeyntii labada xabo ukunta aheeda ayaan ku soo darsan doonaa insha Allah. Waxa kaleeto aan kor uga soo dari doonaa oo halkaan aan oolin organa spice wax yaris oo filfil ah iyo waxaa ku soo dari doonaa baking powder iyo cusbo bakeeriga caanaha ahay labada xabo ukunta aheeday ayaa si fiican isugu qasi doonaa insha Allah. waxaan ku soo daray karootadii kabsar caleentii iyo barbaroonigii ma sha Allah markaasaan isugu karisid xitaa caruurta kama dareemayaan in ay ku dhex jirto meesha qudaar ma sha Allah. waxaa siinaysa tomaatadooda galaaskooda liinta ah ama galaaskooda caanaha ah ma sha Allah. waa quraac aad u wanaagsan ma sha Allah dhan kastana ka dheeli tiran. أصحابتي قاليقا waxaan ku soo daray cheese-ki halka waxaa ku jira qudaartii ukuntii caanihi iyo cheese-ki waan isku qasaa wax yar ka bacda ayaan ku soo darayaa burka insha Allah. wax kaleeto oo qoyaan ah ama biyo ah ma u baahno halahan ayaa qoyaan ugu filan. waxaan ku darsaday saddexdii bakeeri ee burka aheeday. أصحابتي قاليقا hadda waxaan ku soo darayaa organa spice ma sha Allah organaha aad ayuu caraf badan yahay ma sha Allah waana spice organic ah wuxuu u eg yahay xawaaji buur laakiin waa waxyaabo organic ah oo la isku soo shiiday ma sha Allah aadna u caraf badan. waxaan ku soo darsaday wax yaris filfil ah filfishka ma badinaayay caruurta inay ka dareento maraba kuleelkeeda. waxaan ku soo darsaday hal qaandada teaspoon-ka oo ah baking powder أصحابتي قاليقا waxaa kaleeto aan ku darsanaa wax yar cusbo ah kadibna waa isku qasaaya jiiska asaga dhanaan ah marka iyo xeerkaas cusbada ma sha Allah dhanaankiisa okay ayuu isku noqonayaa. qaandada ayaa xir ku qasi doona insha Allah si qoyaanka uu wada gaaro burka ka bacdi ayaa waxaan ku qasayaa gacanta ka bacdi ayaa gacanta ku qasi doona insha Allah. أصحابتي قاليقا gacanta si fiican ugu qasaa insha Allah. waxaan rabaa inuu si fiican isku soo dhaxgalo waan xashayaa أصحابتي qaaliga ah. ما شاء الله ujeedaan diyaar wax yar saliid ayaan kor ka soo marinaa insha Allah kadibna waan dhigayaa waxyar saliid ayaan soo marinaa insha Allah. أصحابتي qaaliga ah si aan geesaha uga soo fufujiyo kadibna waa dhiganayaa waxaan dhiganayaa 10 daqiiqo oo kaliya kadibna waan karsaneynaa waan sameysanaynaa quraacdeena. أصحابتي qaaliga ah waa idin mahad celinayaa dhammaantiinba sida quruxda badan ay igu xiran tihiin comment-yadiina quruxda badan جزاكم الله خيرا. أصحابتي عصب أي وصو بيرتو حين لا يحي سو دوادا دمانتين بجزاكم الله خيرا سيدا يقو حرنتهين وحيد كعصنا فيديوهاش إن هدي أتكهشان لايك تسارتان سي شير غريسان سي أولو داكتين أصحابتي نكاليتو روديجي ديار يو إنو يهي وطبان دقيقة كدب أيان أصولاتي وقت بدن مؤباهنا إن أن سوكتت روتيان ما شاء الله. أصحابتا آنان channelka subscribe-ka uu ahayn waxaan idinka codsanaynaa subscribe-ka dhag ku siisaan insha Allah saa ula socotaan video walba soo gelino insha Allah.
asxaabtayda qaaliga ah wax yariis bur ayaan kor ka mariyay meeshan wax yaraan bur aan mariyay because cajiinka aad u jilicsanay waxaan sameynaa marka wax yaraan isku celcelinayaa 2 kuus ayaan ka dhigtay oo isla eg halkan kuus ayaan fidina insha Allah asxaabtayda qaaliga ah dabkan waxaan soo saartay baankii saliidana ku soo shubay insha Allah fidis badan ma la rabo waxaa la rabaa inuu dhumuc yeeshto sidaas ayaan u fidinaa insha Allah qafiifka ah asxaabtayda qaaliga ah waxaan soo qaadanayaa wax aan ku jiro midi waa ku jiri kartaa waxa haysatay ayaa ku jira kartaa qasab ma ahan inaad caagan yarka ku jiratid laakiin waxaa muhiim ah in aad raacdid directionka ama sida aan u jaraayo waxaan u jarayaa sida biisada oo kaleeto insha Allah aad u jilicsan yahay asxaabtayda qaaliga ah dabkii u jiidaan saliid way ii saaran tahay saliid way soo kululaatay hadda ayaan ku ridridana insha Allah haddii aabaan weyn haysatid oo asaga dhan aad ku wada safi kartid waa kaasaa laakiin aniga baanka saaid uma weyno wax yaraan ku dhex riday oo bur ah saliid way kululaatay sidaas ayaan ugu ridridaa insha Allah asxaabtayda qaaliga ah saliidana way ka gaabiyay markay soo kululaato waan ka gaabiyay dabka because waxaan rabaa inuu si tartiib oo igu bislaado haddii saliida dabka duu dheer yahay wixii ayagu ceeriin ah ayay ka bislaanayaan asxaabtayda qaaliga ah 8 qayb ayuu noqday laakiin hadda halahan ayaan ku ridayaa because baanka uma deeqaayo hal xabo oo shanaad ayaan bilayska siriiska ama dhinaca siriiska u raadiyay oo aan ku soo riday sidaas ayaan ugu riday asxaabtayda qaaliga ah waxaa rabaa inuu tartiibkiisa u bislaado masha Allah xabad kaleeta ayaan ku soo riday waxaa rabaa inuu tartiibkiisa u bislaado insha Allah markuu tartiib u bislaado dhinaca kaleeta ayaa u gidinayaa waxaan rabaa inuu labada dhinacana u gidiyo golden qurux badan markuu ii noqdo oo dhaxda ka bislaado markaas ayaan ka dejinayaa waa u jeetaan waa rooti fudud oo aad bir ku sameysanaysid quraac fudud waaye masha Allah waa kaas waxaan soo qaatay qaada iyo fargeeto sidaas ayaan tartiib ugu gidgidinayaa insha Allah dhinaca kaleeta ayaan u gidinayaa haddana waxaan rabaa inuu tartiib u soo bislaado gidan haddana dhinaca kaleeta ayaa sidaas ugu gidinayaa asaga dhan saasa usoo gidina haddana tartiib ayuu usoo bislaanayaa asxaabtayda qaaliga ah xabada kaleetana isla sidan ayaan soo sameynaa insha Allah kulligiis isla noocaan leh usoo wada jarayaa maasha Allah asxaabtayda qaaliga ah waan soo dhameystay rootigeeni sidaan quruxda badan ayuu inooga soo baxay saxankan ayaan sidan ugu soo safanay tomaatada siriista leh ugu soo qaadaysaa caruurta galaaskooda liinta ama galaaskiisa caanaha ayaad usoo agdhigaysaa maasha Allah waa quraac yar oo fudud waqti badan ka qaadanaynin easy ah maasha Allah ee isku dheelitiran maasha Allah asxaabtayda qaaliga ah caruurta lafaha u dhisayso vitamin walba ay ka helayaan maasha Allah kaarootada asxaabtayda qaaliga ah waxaan filayaa inaad si fiican maasha Allah u jeedaan asxaabtayda qaaliga ah sidoo inoogu soo baxay rootigeeni maasha Allah sidaas quruxda badan ayuu inoogu soo baxay maasha Allah kaaliska arag lagama sheekeyn karo asxaabtayda qaaliga ah waxaan filayaa inaad si fiican uga hesheen quraacdii caruurta saaka aan idin la qaybsanayay dhamaantiinba waa idin mahad celinayaa jazaakumullahu khayran fiidiyowga haddii aad ka heshay like saar commentiga hoos noogu reeb share dheh la wadaag asxaabtaada kaleeto qofku subscribe u ahayn waxaan ka codsanayaa inuu subscribe-ka noo saaro dhamaantiin waa mahadsantihiin intaa ku kulmi doono fiidiyowgan midka xigo waxaan leeyahay kulanti dambe oo xiiso leh. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.